عاويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka BBC ee London wararkeena caawa waxa ugu waaweyn waxaanu caawa eegaynaa degmada Quuta ee dalka Suuriya oo dad badan ku nool yihiin guryaha dumay hoostooda iyagoo halkaasi ku go'doonsanaa 5 sano ee u dambeysay daacunka ka dilaacay dalka Zambia ayaa imikana waxa uu saameyn ku yeeshay isu socodka ganacsiga maxaa ka dhaxeeya cudurkan iyo waratada caawana waxaanu lagu leeyahay kursigaaga xajiso waxaanu booqannay dhuunta 1,000 kiiloomitir saacadiiba ku dhufanaysa tani gaadiidka mustaqbalka ma noqon kartaa dalka Suuriya weeraro istaba jooga ayaa waxa ay ku waday ciidamada dawladda madaxweyne Asad xaafada bariga Quuta 5 sanadood ee la soo dhaafay qaramada midoobay ayaa sheegay inay 400,000 oo qof ay ku go'doonsan yihiin isla markaana ay la tabaalaysan yihiin dhibaatooyinka banaadnimo ee ka jira dalkaasi Suuriya duqeyntan bariga Quuta oo ku taala duleedka caasimadda Dimashq ayaa sii soconaysay inkastoo ay ahayd in aan lagu dagaalamin magaaladaasi Aasha Afrax ayaa ka waramaysa bariga Quuta waa xaafad go'doonsan waxaana ku dhacaya duqeyn cir ah maalin kasta waa un khatar ka carar khatarna u carar dhibaatooyinkan uma eka kuwa dhamaanaya waliba caruurta ku dhaqan xaafadan oo ay tiradoodu gaarayso kala bar dadka xaafada oo dhan ayaa aad ugu dhibaatoonaya Allahu akbar ya akhi Maxamuud waa 3 jir wuxuuna ka badbaaday weerarada balse walaalkii waxa lagu waayay burburada dhismayaalka isku jir 8 qof ayaa waxa laga soo hoos bixiyay guryahooda waxay ka badbaadeen weerarkan balse kama baxsan karaan magaaladan go'doonsan magaaladan Quuta ayaa go'doonsaneed 5 sano ee la soo dhaafay qaramada midoobayna waxa ay ku tilmaameen inay tahay xudunta dhibaatooyinka Suuriya 400,000 qof ayaa waxay ku sugan yihiin raashin darro heerkulka qaboobaha iyo duqeyn joogto ah marka ay duqeyntu joogsato ayaa caruurta loo diraa inay soo ururiyaan xaabo Suleymaan hal canug ayay ku weyday dagaalkan waxayna la daaladhacaysaa inay quudiso kuwa kale bariga Quuta waxa ay u jirtaa Dimashq kaliya 20 daqiiqo oo socdaal ah balse qiimaha raashinka ayaa gaarayo 15 jibaarka magaalada Dimashq عندي 6 أولاد شو بدي طعميهم waxaan haystaa 6 caruur xageen raashin uga keenaa rooti xitaa ma awood inaan u soo iibiyo wax hal mar uun afka la gashto mooyee cuno ku filan ma helaan noo naxariista Abu Ibrahim asigoo isku dayay inuu ka badbaado duqeynta ayuu wuxuu hoy ka dhigtay dhismayaal laga qaxay labadiisa wiilna waxa ay halis ugu jiraan qaboobaha jiilaalka marka cunto laga hadlayo wax badan ma iibsan karno ma awoodna raashin sidaas ah maalin walba wixii aan helna ayaan cunnaa wixii aan helnana waan shidanaa waxaan shidanay badankood alaabihii aan soo qaadanay markii aan soo qaxnay mana jiro wax gargaar ah oo galay xaafadan ilaa iyo bishii 11aad iyagoo weeraradani ay sii soconayaan ayaa dawladaha Suuriya iyo Ruushku ay sheegeen inay quwadahoodu ay weerarayaan qolooyinka mucaaradka ah ee ku sugan xaafadan oo kaliya faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga ilaa bishii Oktoobar cudurka daacunku wuxuu Zambia ku dilay in ka badan 60 ruux ku dhawaad 3,000 oo qofna waa uu ku dhacay cudurkaasi dalka oo dhan waxaana Lusaka ka dilaacay rabshado la xidhiidha in la xidho suuqyada wadooyinka taas oo loola jeeday inaanu cudurku sii faafin tallaabooyinkan adag waxa ay baabiyeen dad badan ganacsigoodii cudurka daacunka ayaa meelo badan oo Afrika ah oo Soomaaliyana ka mid tahay dhibaato ku haya isagoo loo aaneeyo inuu ka dilaaco nadaafad xumida iyo wasakhowga biyaha la cabo Ismaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya Brighton Bonda waa aabaha 7 caruur ah wuxuu 16 sano ee la soo dhaafay iibinayay muus kadib markii sanadkii hore uu dilaacay cudurka daacunka halkii wax ku iibinayay waxay ka mid ahayd kuwa badan oo dawladdu xirtay maadaama ay dawladdu isku dayaysay inay wax ka qabato inuusan cudurka faafin
ganacsigaygii way saamaysay 13 cisho waxba maanu iibin waxaana ay burburiyeen meeshii oo dhan iyaga oo aan waxba noo sheegin annaguna dadka waxaanu nahay qaadaa madhargaha ah ee maalin walba jecel inay carruurtooda halkan uga soo saaraan biilkoodii iyo maciishadoodii yareed sidee baanu ku noolaanaynaa oo aanu xaaladdan kaga bixi karnaa waad aragtaa waxaana haysta rabshado ayaa dilaacay sanadkii hore kadib markii dowladda xirtay qaar ka mid ah suuqyada waddooyinka ee Lusaka taasi oo ahayd dadaal lagu joojinayay inaan cunto iyo cabitaan lagu iibin meelaha loo arko inuu cudurka ku sii faafi karo arrin siyaasadeed ayay Zambia ka tahay wadda wax ku iibinta iyadoo ay ku soo aaday xilli doorasho ayay siyaasiyiinta is-eedaynayaan si ay codad ugu guulaystaan balse waxay hadda u muuqataa inaysan dowladda ka hormarinaynin caafimaadka guud tan siyaasadda mustaqbalka kuwa waddooyinka wax ku iibiya waxa ay madaxda magaalada u arkaan arrin aan maanta taagnayn waxaa hadda hor yaalla mushkilad xal u baahan waannu ognahay dadku inay dariiqyada wax ku iibiyaan si ay u soo saaraan nolol maalmoodkooda dhinaca kale waynu ognahay dadka laftoodu ku ganacsado dariiqyadu ay qayb ka yihiin xaaladda qashinka magaalada oo faraha ka baxday waxaa loo baahan yahay mujtamaca in loo sameeyo suuqyo si dadku aanay wax uga iibin degmada ganacsiga ee dhexe marka laga reebo ciidamo ka hortagaya in suuqyada waddooyinka soo laabtaan waxay saraakiisha dowladda xayireen maqaayadaha iyagoo ku eedaynaya in ay ka hooseeyaan heerka caafimaadka inkastoo ka hortagga uu ka wanaagsan yahay daaweynta haddana ma foga inta ay ka soo laabanayaan kuwa waddooyinka wax ku iibiya qaar ka mid ah xanibaadaha ayaa la fududeeyey dowladdana ma awooddo xilligan doorasho in caro iyo gaajo muddo dheer sii jirto bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saaray oo ay ku buurinayaan ciidamadooda nabad ilaalinta in aanay ka laaban inay isticmaalaan xoog haddii loo baahdo iyagoo sheegay in kuwa cadaawadda wadaa ay fahmaan luuqaddaasi oo keliya ugu yaraan 200 oo qof oo nabad ilaaliyayaasha ka tirsan ayaa la dilay 5 sano ee ugu dambaysay Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu khatarsan hogaamiyaasha Kurdida ee waqooyiga Suuriya magaalada ku taal ee Afrin ayaa ugu baaqay dadka rayidka ahi inay ka qayb qaataan difaaca lagaga hortagayo weerarka Turkiga maalintii afraad ayaa gulufta Turkigu bartilmaameedsatay goobaha Kurdida iyagoo madaafiic ku garaacaya Ruushanka ayaa sheegay inay arkeen kumanaan qof oo ka qaxaya gobolkaasi madaxda adduunka iyo hogaamiyaasha ganacsiga caalamiga qaar badan oo ka mid ah ayaa ku kulmaya Switzerland shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos World Economic Forum waxaana la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Trump uu halkaasi hadal ka jeediyo shirkan ayaa imanaya iyadoo dhaqaalaha adduunku aad u kobcayo waxaase laga digayaa farqiga u dhaxeeya dadka wax haysta iyo saboolka Hugh Masekela oo ahaa muusigyahan caan ah oo trumbaha afuufi jiray ayaa geeriyooday waxaana loo yaqaanay aabbaha jaaska Koonfur Afrika qoyskiisa ayaa sheegay inuu si bes ah isaga dhintay magaalada Johannesburg xalay waxa uu ku soo caan baxay muusiga jaaska 1977 magaalada Soweto waqtigaasi oo uu ka soo horjeeday taliskii midab kala sooc ahaa ee ka talin jiray halkaasi dalka Hindiya gobolka waqooyi bari Assam ayaa waxa uu yahay meelaha ugu badan ee shaaha laga beero caalamka laakiin shaqaalihii shaaha gurayay waxa la soo gudboonaatay halis cusub markay sii durkaan beeraha shaahuba ee ay kaynta sii galaanba waxa la isku dhacayaa maroodiga halkaasi ku nool oo dad badan ku laayay beerahaasi 10 sanadood ee ugu dambeeyay Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa eegaya maroodiga Assam caleentan shaaha ee dumarkan ay gurayaan waxa loo beecgeyn doonaa suuqyada caalamka waa qayb qurxoon oo dunida ka mid ah laakiin halisteeda leh in ku dhow 800 oo qof ayaa maroodiyaashu ay ku dileen Assam 10 sano ee la soo dhaafay Mariam Karkita waxa uga dhintay bishii Oktoobar gabadheeda oo 26 jir ahayd labada dhinac ee beertaba deyr ayaa ku wareegsanaa sidaa daraaddeed gabadhaydu ma aanay baxsan karin fursad aan ku sagootiyo ma helin xitaa ma arki karin markii ay weli noolayd madaxda dowladda ayaa sheegaya in beeralayda yaryar ay si sharci darro ah u qaadanayaan dhulka kaymaha
laakiin hogaamiyahan deegaanka ayaa sheegaya in shirkado waaweyn ay ku jiraan. sidaannu u aragnay iyo sida ururkayagu 30% ilaa 40 ayaa sharikadaha shaaha beera ku soo durkeen. laakiin ururada matala shirkadaha shaaha ee India waa ay diideen arrintan. waxay sheegayaan in aanay kaymahaasi ku xadgudbin. madaxa kaynta Uralgudi ayaa sheegaya in aanay waxba gacanta ku hayn oo beeralayda shaahu ay la wareegeen kayntii oo dhan. cunto iyo biyo badan ayuu maroodigu haystay, balse mar dambe oo ay dadku kordheen ayay meelahan beerista shaaha ka bilaabatay. maadaama uusan maroodigu cunin caleenta shaaha, wuxuu bilaabay in uu tuulooyinka galo. dhibaatadana saas ayay ku timid. dawladdu waxa ay sheegtay in hadda dhul ay soo celisay kaasi oo sharci darro loogu beerayay caleenta shaaha. waa tallaabo yar, laakiin arrinta muhiimka ay waxay tahay intee ayay wada noolaan karaan dadka iyo maroodiyayaashu. caawiya ciyaarahan Alexis Sanchez ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta caalamka ugu weyn waa Manchester United, waxaanu ka soo digay rogta Arsenal. ciyaartoyga reer Chile Sanchez ayaa qaadanaya sanadkii $20 milyan marka cashuurta laga jaro, waana ninka ugu mushaharka badan horyaalka Ingiriiska. weli waxaynu dhex mushaaxaynaa Manchester United waxa ay noqdeen kooxda ugu lacagta badan ama ugu qanisan 20 kooxood caalamka ugu waaweyn. waa sanadkii labaad ee ay liiska ugu horeeyaan, waxaana soo saartay warbixinta shirkadda xisaabaadka Deloitte, waxaana qiimeynta la sameeyay 2016 iyo 2017. waxaa laga yaabaa in loo arko wax aan suurtagal ahayn, laakiin farsamayaqaanada iyo maalgashadayaashu waxa ay aaminsan yihiin in dhuunta la yidhahdo Hyperloop aanay ahayn khiyaali ee ay tahay gaadiidka mustaqbalka adiga oo ku soconaya xawli gaadhaya 1,100 kilomitir saacaddii. BBC-da ayaa tagtay lama degaanka Nevada ee dalka Mareykanka si ay tuubadan iyo tijaabooyinkan u soo arkaan. Cabdisaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa ka warramay. waxaannu u soconnaa lama degaanka Nevada ee waqooyiga Las Vegas si aannu u soo egno sheegashada kuwa taageersani ay leeyihiin waa gaadiidka aayaha dambe. waa dhuuntan Hyperloop oo dadka dhex marin karta 1,100 kilomitir saacaddii dhuun aan hawo ku jirin. dad badan baa aaminsan suurtagal inaanay ahayn. dadka mashruuca taageersan waxaa ka mid ah Richard Branson oo noqonaya guddoomiyaha. tani waa tijaabo waddo oo 500 mitir ah, waxaanay leeyihiin waa tijaabo teknolojiga ah, laakiin weli bini'aadmi aanay saarin. waxaa khibradda ii siiyey shaqadan ayaa ah inaan markaygii hore ka soo shaqeeyey. madaxa farsamayaqaanada waa saynisyahan laga soo qortay NASA. waxa ay tidhi sabab ay dadku u baqdaan ma jirto. Hyperloopku waa tareen ku socda habka birlabka oo ku ordaya dhuun mara. waxaad ku matali kartaa dayuurad duulaysa 60 kilomitir. dadka aan ka baqanayn inay diyaaradaha ku safraan ayaa isticmaali karaa. tareenkan ayaa isagoo si fudud ku tegaya halkii loo socday, tamar badanna dhaqaalaynaya. ma aha mashruuca keliya ee noociisa ah. maalqabeenka gawaadhida korontada Elon Musk ayaa markii hore fikraddan keenay. waxa uu soo jeediyey dhuun la hoos mariyo Los Angeles oo gawaadhi qaada oo dhuun gaara loo beddelo. dhuuntan Hyperloop ee Virgin waxa ay sheegeen dad inay qaadi karto London ilaa Edinburgh 50 daqiiqo oo keliya. isu socodka New York iyo Boston waxay ka dhigaysaa nus saace. dawladaha in lagu qanciyo intanu ay dhici karto ayaa ah arrin adag, iyo sidii lacag loo heli lahaa dadku ay bixiyaan si arrintanu ay u meel marto. ugu dambayntiina waxaan iyaneedi kaga tegaya hawada sare iyo huufarka ma la raaci karaa iyadoo aan cufka dhulku ku soo jiidanaynin. waa su'aal madaxa daalinaysa. cirbixiyeenka ruushanka ah Anton Sharablaevkov oo jooga saldhigga hawada sare caalamiga ah ayaa isku dayay inuu su'aashaasi isbarkan ka jawaabo. oo adiga arka duulimaadkaa yare uu samaynayo. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni caawa. waa ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aynu kulmayno berri toole hadduu eebba idmo, waxaannu idin leennahay kulligiinba waa mahadsantihiin. nabadgelyo.